بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما لي سلاسة إلهي سلاسة خير كذا هاي نسي سلاسوين كلو بدنا عارف ما لي عمر داري عبادة تامة يعلم السوق وما أنت تصوبات يا رمضان أنت وحيلة تريا مديرة وقت كنا واسلا عمر كنا واسلا دون كنا واسلا قفوا حقارنا عشان كم حنقول سورة مائدة وحوي miiska raashinku saaran yahay suuradda imise aayadood bay ka tirsanta ayay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay 120 aayadood sida suuratu nisaa oo kale halkee bay kusoo degtay madiinay kusoo degtay sida suuratu nisaa iyo suuratu baqara oo kale iyo al-imraan oo kale suuraddu maxay ka hadlaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa balanta iyo aaminaadda qofku aamino yani gabadhaydu tusaale oo kale waa inay aaminto badanaha ka baxo ilaa ninkaagii tusaale la yidhaahdo dumar buu la hadlayay waa inay aaminto iyadana waa inaan aamino yani qofka aanad ogeyn inuu aada isku halayn karto qofka ganacsiga qofka tusaale oo kale qofkan ganacsiga la wadaagayo ganacsigu naga dhexeeyo inaan aamino yani isaga uu ku khiyaameynaya taasoo loo baahan yahay qofku isbedbedela maaha 3 sano ka bacdi inaad isbedesho maaha looma baahno waxa dabeecaddaasi waa inay dabeecaddaasi abadan noqoto iyo akhlaaqda ayay suuradda xooga saartaa waxa ay ummadda muslimka abartaa sida balanta ilaahay iyo dadka iyo xitaa naftaada looga soo baxo suuraddu waxay kale xooga saartaa nafka adkaysiga soonka oo kale in qofku soonka uu ka soo baxo balantu kale ka soo baxo wuxuu yidhahda waan iska daynaya sokortaan yidhahda waan iska daynaya aan iska daayo wallaahi waan socdaayo waan gubayaayo waxay ku yidhahda iska cunta adigu waad socotaayo waad oradaayo waad gubaysaayo waa inaad iska adkayso waa in dadka kaloo cunaya adigu aad is adkayso waa in dadka kaloo xaflada kusii cararaya dadka kaloo siyaasada xaflada tegaya oo dembi kusii cararaya waa inaad adigu iska adkayso waa inaad maqaaxid la tegaya aad iska adkayso tiraad buug baan akhriyaya cilmi baan kororsanaya taas is adkaynta islaamku waxyaalaha islaamku dadka ku dhiirigeliyaa ama uu baraa waxa weeye is adkaanta qofku inuu iska adkaan karo maxaan sameeyaa maan iska dayn karee ayay ka oranayaan waxaa kasta waa la iska dayn karaa iska adkaynta waxay ku tababartaa qofka ilaahay aaminsan inuu dabeecaddiisa iyo xanaaqaysa uu maamuli karo qof waan xanaaqsana wax kasta iska yidhahda maaha ceeb weeye taas inuu cadaaladda yani dadkeenu way ku liiday halkaa waxaan dhiga waa cadaalad darrada adaha ku cadaalad darrada inuu cadaaladda wax kastoo dhacayna cadaalada u taagtay ayay suuratu maa'ida ka hadlaysa qofka muuminkii waa inuu ilaahay aaminsan waa inuu cadaalad u istaago si in kastooba laga soo horjeedo dad kastoo ka soo horjeedo waa inaad u istaagto cadaaladda ilaahay uu jecel yahay cadaaladdu waa muhiim qofka caafimaadkiisa ku jira cadaaladda dadka cadaaladda ka shaqeeya wejigooda isku mid maaha jirkooda isku mid maaha ma gaboobaan mana daalaan dadka cadaaladda ka shaqeeya waayo barako kale ilaahay geliya intaa cadaalad unba u soconayaan ta ugu horeysa waxa weeye taan ka hadlay sii falaqaynsa suuraddu balanta ahdi wa uufuu biahdi ka soo baxa balantaad gasho waxay aayaddu ay ku bilaabantaa suuradda ah sida kale astaqfirullah suuraddu waxay ku bilaabantaa aayadda ah waa dadka ilaahay aaminayo kasoo baxa balantiina waayo islaamku waa diinta mas-uuliyadda inaga maqan maanta qof kasta mas-uuliyadda bulshada ka saaran reerkiisa ka saara kama soo bixin balanta laga soo baxay akhlaaqda in qofku yidhahdo 4 subaxnimaan kacayaa waan soo ordayaa 2 saacadood ama saacad uu kaco ka soo baxo yidhaa maanta roob baa da'ayo maanta baraf baa da'ayo waan iska seexday ma jirto waa inaad ka soo baxdo waa inaad akhlaaq iyo hibo yeelato haddii aad balan jabiso
waxa aad burburisay ummadda ayaad dayacday. alla maxaad dad been u sheega balan ka soo bixi dhowna kula murmaya haddii aad balan ka soo baxdana ummadda way hagaagaysa. dadka midnimada doonaya Soomaaliyeed balantaada ka soo baxa shakhsiyadaada, casharada waxay ku salaysan yihiin shakhsiyadda wey. dad balantaada ka soo baxdo ummadduna way hagaagaysa, dad balantaada jabiso ummadduna way burburaysa. halka hari talabaadna waxa weeye xalaal iyo xaaraan ayay suuraddu kala dhigaysaa. hilibka laynoo ogoliyey iyo raashinka laynoo ogoliyey, raashinka laynoo ogolay, sharciga raashinka, ugaarsiga sharcigiisa, marka xajka la joogo ixraamka, kasoo horjeedashada khamriga iyo daroogada, jaadku uu soo gelaya, kasoo horjeedsiga khamaarka. ingiriiska waxaa ku haysta iyo fiinishka iyo holandiiska iyo reer galbeedka hore khamaarka dadkooda waa kasoo horjeeda. waxaan ka qoraa khamaarku dadku reeru gube inta reer galbeed yurubiyan uu gubay ma jirto. marka waa inaad ka doodataan sharciga xoolaha sida loo qabo, inaad akhlaaq u qasho xoolaha, inaad iska midida kula horista lama ogola, islaamku ma ogola. fariintu way cad tahay. haddii aad ilaahay adeecdo waxa weeye waa cibaado taama, waxa weeye waa cibaado taama. dad ka soo baxdo sharciyadaas waa cibaadadeedii barhkeed. saddexaadna waxay tahay sheekada miiska raashinku sida uu saarayay suuraddu magaceeda halkaasu ka yimi. dadkii ciise raacay calayhi salaam ayay suuraddu ku magac baxday. waxay weydiisteen ilaahay yuhuudiga in ilaahay muxuu ahayey uga keeno raashin dhulka ceerka uga keeno. ideedna ciise calayhi salaam ayaa muxuu ahaye uga digay inay ilaahay ka cabsadaan, ayuu uga digay. haddii ay raashin cirka yani mucjiso cirka uga soo degto ay yidhahdaan waxba kama jirta taha, markay cunaan ay yidhahdaan waxba maanaan anagu arag, cadaabteeday leedahay, cadaab adag bay weliba leedahay. sharciga casharka ku jira ayadda waxa weeye ilaahay ha weydiisanin mucjiso, yani uu ku siinaya ilaahay waxaad weydiisto, waxaad ilaahay weydiisataa qof iimaan wanaagsan le inaad noqoto. ta afraadna waxa weeye cadaalada haddii xitaa adii kaasoo horjeedo dadka